maanta waxaan arkaynaa sida Android loogu xiri karo database-ka MySQL-ka caadi inta badan Android iyo MySQL isku xirmaan si toos ah waxa u dhaxeynaa luqad kale oo script language nooc raba ah laakiin waxa isticmaal doonaa PHP maadaama semester PHP qaadataan so PHP-gan Android iyo database-ki MySQL-ka dhaxtaal u noqon doonaa Android PHP files kula hadla PHP files-ka waxay la hadlayaan database-ka xogta ka soo qaadayaan Android u dhiibayaan لكن Android no soo ordo si toos ah gacanta ma la galaya MySQL so PHP oo dhaxeeya marka script language JSP isticmaal kartaa Spring Boot isticmaal kartaa luqado badan oo Java xataa isticmaal kartaa sidoo kale waxaan arki doonaa isticmaal doonaa library oo Google ka soo saareen oo loogu talagalay for network travel connection-ka network-ga server-ka le PHP-ga files wuxuu yaalaa server salaano qaadana local server isticmaal doonaa software kan kulli waa taqaanaan hada PHP ba sameeysan waa taqaan soo computeriyo ku jira soo kana marka wuxuu matala anaga server ka si aan u gaarno waxa u baahanaa marka wax act gareynaya as connection soo library waxa isticmaal doonaa oo qolada Google ka soo saartay oo Android developers ka loogu talagalay oo la yiraahdo Volley library-ga wuxuu naga caawinaa waqti badan inuu noo baaqiyo oo salaano kala galaasyada iyo waxyaalaha inter iyo caching iyo waxaas oo dhan asaan oo qabanayo just saddex request noo diyaarina saddex request mid gaar isticmaal waana saddex request inta badan database lagu la hadlo database-ka ina request u dirtid jawaabtu ku soo celina uu noqdo war caadi ah xogtan waa la helay xogtan waa la waayay xogta waa la xareeyay waayay database-ka waa la gaari waayay wax string caadi ah war ah request wuxuu diyaarinayaa marka string request request-ii uu leeyahay volume tusaale ahaan oo kale jabtarkaas ka soo kooba saddex request ka soo qaadanayna waxay yiraahdaan string request number labo JSON request saddex image request inta badan request response daa maqash macnaheedu waxa request client ya inta badan request diro dan server-ka wuxuu ku soo jawaabaa response request-ga dalbanaysan wuxuu ku xiran tahay waxa ka imaan doona team-ka soo galay fasalka waa noo degnaya response jawaabta ka soo naqanaysa server-ka salaano kale xogaa raba inaan xareeyo laakiin database-ka xogta markuu ii xareeyo ama markuu xareyn waayo waxaan ka rabaa oo kaliya xogta waa la xareeyay yalla ma xareyn so response noocaas uu noqon doonaa oo PHP-ga ku soo jawaabi doono xogta waa la xareeyay waay wax noocaas oo kala oo war ah markaas oo kale marka request-ga direyno waxaan u direynaa anagoo isticmaalayno string request ilaa wax soo noqon doono wuxuu noqonaa war caadi ah oo string ah JSON request asiga laba u kala baxaa waxay dhahaan JSON waana midka ugu badan JSON object ka bilaawno JSON object request iyo mid kale oo la yiraahdo JSON array request waana marka system-ka isticmaal real project ka sameyn doono isbuuc soo socda bilaabi doono request-yada database kula hadleen wuxuu noqon doonaa JSON array request labada waxaa loo isticmaalaa xog table ku jirta in lagu soo akhriyo labada request kan hore waxaan ku dhahaa war caadi ah xogta echo bisa la isticmaalaa warka waa string request-ga wuxuu dhahaa xogtan waa la xareeyay waay user kan already waa la qaatay user kan waa okay waa la aqoonsay user kan lama yaqaan wax noocaas oo kala war ah kan koowaad oo isticmaalayna string request JSON request-ga marka si toos loo isticmaalay labadan ka farcamayaan galaaskaas oo la yiraahdo JSON object request JSON array request labadan goor ma isticmaalaa tusaale haddii database-ka response-ga uu soo celinayo uu yahay information noocaan oo kala ah oo sidaan oo kala tusaale oo kale ID laba dhibcood qofka ID-giisa aye qaado kale employee name laba dhibcood magac qofka Ahmed Umar Ali age
laba dhibcood 23 information noocan oo kale markuu soo celinaya serverkaaga oo markaa fail la hadasho php ah oo information noocan oo kale ku soo celinaya oo taageedaan ku jiraan taagas oo square waxay dhahaan ee curly bracket ka sidaan dan wuxuu aqoonsanaynaa kan marka noocan oo kale oo serverka ka imaanayo requestiga android aad stop gareyn wuxuu noqon doonaa json object request so aniga php waxaan isticmaalaa just inuu API ahaan oo marna wax noo xareeyo marna information noo soo celiyo hadda information kan one row waaye salaam kale hal row soo celinaa haddii information database ki imaana uu yahay like array calaamadaas oo kale uu ka bilaabanayo calaamadda arrayga canka ku ah kadibna gudihiisa ay galayaan waxyaalahan oo kale multiple objects arrayga wuxuu json arrayga wuxuu haynaa multiple objects salaam oo kale comma hadana mid kale comma hadana mid kale kan noocan oo kale waxaan u naqaanaa leenahay json array request isticmaal doonaa insha allah so kala space oo dhexeysiina labada hadaa fiiris midna waa array oo macnaheedu waxa waa hal value ka badan oo wada hal row ka badan oo wada json object-tigna waxa loogu talagalay hal row bas hal qof information-kiisa sometimes xataa waxay karto json array naftiisa hal qiimo uu qaadi karaa maano array maxaa loogu talagalay hal qiimo iyo wixii ka badan so hal qiimo xataa uu qaadi karaa in array samaysto hal qiimo ku shubi kariyo sida variable camal ku shubi karaa so marka inta badan taasaa keenta marka json object-tiga inaa inta badan dad developers aysan isticmaalin bedelkeeda json array isticmaalaan ama hal row hala soo aqriyo ama multiple row hala soo aqriyo database ka laga soo aqriyo so feelasha sameynayna marka hadhowti hadduu information noocan uu soo celinayo android-ga marka volume waxaa ka isticmaalaynaa json array request sababto aw isqaadanayaan adoo database string imaanaya haddaa variable integer aad diyaarisa ka waraa ku shubaa dhahayd so compatibility-ga ever dhaqanay soo maa waa lagugu qabsanaa errorkaas marka compatibility saa u ilaalino waxaa rabnaa maxaa serverka ka imaanaya oo hadhowti response naqanaya waxaa serverka imaan doona json array request so requestiga marka hore aan dirayna formaat ahaan waxaan u diraynaa json array request serverka maxaa ka imaanayo string request so failka markaan diyaarsanayna waxaan qoraynaa string request marka waxaan rabnaa inaad tijaabin kuwan waxaan ugu imaan doonaa qaybta oo markaa project aan samaynayno maalinta aan ka fiirino tusaale ahaan oo kale meesha waxaa yahay small project yar design yar aan soo sameyn tusaale ahaan oo kale waxaan rabaa cashirka maanta inaan isku badin si waxyaalaha fundamentalka uu leeyahay aan u fahno just designkan maxaa rabnaa employga magaciisa iyo haddii aan heli karno employga telefonkiisa tusaale ahaan oo kale inaan bal server geyno inta server geyno maanta is okay kadibna aan ka soo akrino haddaan ka soo akrinayno waa inaan json array isticmaalnaa dib male see noo qabataan arkayna so meesha waxaan ku haystaa labo okay kan waxaan leeyahay employee phone okay id-giisa employee student aan oo qoran waxaan leenahay employee phone phone waa qaldamaya muhiimadda waxaa hadhowta markaa id-ga sheegaysid inaad soo u qoraya u sheegtay bas soo qaldan xataa inaad siduu qaldan yaa u sheegtay kan kalena maxaa waa asigan employ misi hataas ka isticmaalaysa okay marka hore database-kii iyo feelal php-ga aad soo diyaarsana kadib android u soo naqanayna insha allah meeshan waxaan ku hayaa tusaalahaan oo kale markii haddiiba zamba aa rabta inaad wax ka maamusho waa inaa follerka zambaha uu kugu diyaarsan yahay fail dhammaan feelasha foller oo feelasha php-ga ku hayo dhan waxaan imaanaa htdoga fiiri meeshaan foller follada qaar aa heli karo collectionka iyo wax lamidka
meesha folder caadi ku samaysanayna glasskan oo la bixinaa CS 19G laakiin inta project magiisa xaar ka dhig folderkan waxa isku keenaa waxyaalaha scriptiga oo PHP ga ah oo awood isiinay inuu Android la hadlo dana database wax ku shubo ama database wax ka soo akhriyo Android u dhiiba ana casxana waxaan joognaa Zambah caadi ah HTTP كل familiarity ما هو ماشي نحط ديارسنا مركا software كانت استعمال فو إدي تكستيا سبليما استعمال دونا فول كان software ما يسكل أي ما استعمال عشان مسيك كان سماه سو كاس متكار ناس استعمالها ما كاس دار استعمالها في اوكي فول كان waxaa la ku shubaa kan hadii wax ka faa'iideysan karno connection kan oo kale ka faa'iideysan karto connection ka qaabka loo sameeyo CS19 فايلك مجلسة connection فايل كان جستي وحي سمينا connection كسكو كحرا وكلي هاي PHP ما هم يعني علامة التاج يا مقال PHP هاي انت ولا فانسيها سامع only database أنا قلت هذا مهندسنا so database كان سمينا دونا سنة تكسو حن كديجينا CS19G GB database كسو حن سمينا دونا هال table أو employee أو لوا column له سدح column ID هي لوا column employee name employee phone connection customer كسان تستكرين PHP هنا تقانا أنا وفهمها إن شاء الله يا الآية ها إذا كاست عشان الآية مسكون كلام معنا كم إن الحاجي الآية من اللي يقول مثلا وحنا فيديو شو مدوا متى قال واحد كستنا حفظ قسم معه وحيالات قاعد دوكيومنتيشن كذا تكسر له بيشتغل قدام بيساين أيه database كواكن حالة ده CS 19D يا GDB هل table أقدر سنة أولي رادو employee كانوا كلا وككوبنا دونا أفرت تكون أفريد أقدرينا أيه كواد ID كلابات employee name كسدحات employee phone كان أفراد date كا وقتي هاي database كواد حارب ID إنه أوتوماتيك ناخده هاي شيء أوتوماتيك بقول لك أوتو increment ليه ما أنا so check and سارة ما كتب so automatic wuxuu noqonaa marka primarkey kan waxa la yaab varchar ama content 40 intuu qaadi karo kana sidoo kale varchar kan waxa la yahay waqtiga date and time default qiimaha siina waqtiga markaas la joogo macnaheedu waxa waaye ID-ga iyo ID-ga iyo table-ka date-ka wax igama baahna oo information hadhow tina soo geliyo ya gaara timestamp soo leeyahay default haye scriptigan u naqanaynaa marka browserka hal mar haddii aan connection-ka ku jeegaray karno aaway browserka intaan imaanaynaa local
host فايل فولدر كان يسمعوها CS 19G slash connection ده هديك الكونكشن كا اوكي هذا صح وجهه سو بحين معناه waxa way connection kii uu aqoonsado okay waxaan ka bilaabaa marka failka uu horeeyay oo employee iyo xareenay safe employee sameeyna control N control S CS 19G waa joogna sama magac wala baxa waxa leeyahay employee break employee salaam magacyada wala baxdan maxaa waay safe registration ma raadaan register.php هيه تاج نوفر أو معلمين PHP جاوا مجوجان هيه connection كنوع connection كان فيل كان واكنا connection dot PHP اوكي وحارنا فيل كان اول انه شقيو markii request la soo diro inuu mar walba iska shaqeeyo mar walba salaano kale requestiga nooca oo waliba postiga ama get mid ka arno so post ama get ka isticmaalna waxaan fiirinaa salaano kale waxaan soo duubi doonaa android markaa joogo post ama get waxaan ku soo xiri doonaa aan get daan salaano kale marka u horeysa post ku kala isticmaalna variable yiraahdo employee name so kan also pass garan doona iyo kan kale oo employee ID employee phone marka waxaan rabnaa failka inuu shaqeeyo at the time oo get request uu helo methodka then getka case kiisa freeze uu yahay employee name wax ku jiraan waliba variable wax ku jira PHP si la hubiyaa set sama function kaas la isticmaalaa set underscore s underscore get لأنه حتستقريننا employee name هذا حروف شو فعل كان مركز بس عرفنا إنه شقيق كسب إنه سنة مرة والله إبر صوبا اللي عرفنا لكن مركي بوستيجا قد ما كل استعمال إنه صوبا دين مع سمايننا مركا قد كان variable يركب ليجنا مركا سلام لو كلا employee name control D malam ya control D duplicate في سكوت كماله أيه كنا employee سنة فريز وحنا قنا نلاقي سو آخر employee هادوت مكان دوري جوا أنا فرياش أنا كسوحر بعدي كلا نسوا وافق يعني أيه استعمال variable كان connection كا أوه this one أو connection كفوجرة كون ده نحن وعنا كوري فكشن اللي ده كوري فكشن كان كوري محيي سمينا بقول حرينا بس insert into table كان مقيس ما يقول كلام محلو حرينا إياه values كل حرينا variable هذا سأو باس قرينا مرك variable هذا هذا سمينا employee name يا خلاص so waxa uu soo celiyay marka waxaan ku xiranaynaa variable ku shubanaynaa oo la yiraahdo result dan waxaan fiirinaynaa hadii resultiga uu true yahay macnaheedu hadduu true yahay xogta waa la xareeyay hadduu false yahayna sarfarka jawaabo uu bixinaa marka haddii xogta la xareeyay tusaalahaan oo kale waxaan celinaynaa waxaan yes tusaalahaan oo kale calaamada u samaysanayna haddii kale وعلينا no marka antaro marka joogno hadii sarfarka failka marka soo dalbano registerka aan soo baas gareeno wixii dhaato in buu u baahan yahay jawaabtu noo soo celiyo hadii yes naqata maxaan u qaadanaynaa xogtii in la xareeyay haduu noo soo celiyene
dan xagga markaa joogno anaga wax yar ma ka dhigi karno markaa noo helno waxaan dhigi karnaa waa la xareeyin waaye af talyaani af ingiriisi af carabi waxaad kusoo bandhigi markaas failkan aad testi garay waxaa la dhahaa sina register wax walba markaa browserka joogto testi garay inta aadan ka gudbin failka wax jawaaba ma bixinayo sababtoo ah wuxuu dhageysanayaa inta badan ifa ku xiran ifa ku xiran if haddii lasoo sad garay employee name so employee name anaga ma sad garayn so failkan waa laga boodaa marka ma shaqaynayso oo iftaan oo dhan ma shaqaynayso qaybtaas u dambayso kale haddaan else ku xiran ka waran si qofka uu soo xasuusin lacala inay wax ka maqan tahay eeko waxaa leenahay request method should be get tlaana hadda markaas aan dhaan waxaan rabnaa marka inuu else noo shaqayso failka mar walba wuxuu ku shaqaynaa leenahay marka get in la soo else la shaqaynaysa laakiin inta badan waxaa la sameeyaa qofka maba loo sheegabo yuusan ogaanin ka tir ayay naftarkeedii ogaanin ay url saa u raacinayna get aye url get see loo raaciya simple waxaan leenahay calaamad su-aal furaha sheegaysaa marka furaha kuwaad muxuu ahay employ name baan ku shubaynaa bilowna waxaan ku shaqo qaado kale maxamed and furaha labaad oo dhageysanaya maxaa waaye employee phone sina waxaan ku shubaynaa number so hadda url kaygu dhamaystiriyaa marka so methodku isticmaalayna waa get waaye get iyo post inta maxaa get inta badan domain name-ka ama address kula socda ama values okay hadda dhan inta qalada noo sheegaa marka qaladka maxaa waaye afiirino column la yidhaahdo employee name kuma jiro tablekan columnkiis muxuu ahaa employee name employee phone tablekaasoo fiirinayna tableka oh underscore ku jirmiya employee underscore name employee underscore phone sorry underscore save control s ayay haddane soo celiyey yes aan database ka fiirina marka refresh so maxamed iyo number sidaas kusoo gala so failkaasaa marka anaga inta badan android xog kusoo tuuri doono failkaasaa xogta xareenahay danna yes iyo no kusoo celinaas dina fadhiiso failkaasaa xogta noo soo celinaya okay intaanan failka kala sameyn wax soo akrinaa bal intaan android ka isticmaalno fiir database-ka afar tableka afar column uu ka kooban yahay haddana si ma jiro qofkiina waa bixi karayaa hataa semesterka ka dhiman ha imaan direct aniga 30 jir macel celinay weliga ha imaan okay waxaan sameynaa marka failka bh waxaan tagaynaa android-ga so meesha waxaan ku haynaa marka laba file laba input labadaa input si toosa waxay u duqeynayaan labada column oo tableka noo saaray simple hoy team gadaal macallin oo buunta iga jaray tuugaysaa iska baxaa ku dhawaad diidada cashirka la soco option koowaad waaye iska hurud option labaad waaye option saddexaad banaanka iska tag galaaska qasin intaas daadiid waxaa waaye dagaal waa naga dhaaf dadka ardayda wax rabaan ha qasina banaanka iska fadhiista okay waxaan sameynaa marka labadan column waxay duqeyn doonaan labadan edit text labada column design-ka noo saaran marka hore waxaan ka bilaabaynaa library-ga inaan kusoo darsano projectiga midna xasuusnaa library-ga
sidoo yahay u qorto xataa okay hadii failkan ku soo gaar koobiyeyso hadii uu ku soo gaarin internet xataa way weydiin kartaa volley library leedahay saa ku tusay soo koobiye simple hadii kale soo qoriya u qor okay wax dhibaato ma laha laakiin bishardi markaas inuu internet computer ku xiran yahay the fast time ku xiranaysid qaybtan waxa iimaanayna anaga oo library lagu guba green list qaybta labaad waxa raadinayna double click si soo fur ودمكان يوم حكى قلدن implementation so أتكون library ده كانوا فيه forms كا library forms كانوا صوت قلنا واي design كانوا صوت قلنا كل string استعمالين library كانوا قيمانا so سياسة لما ده library كانوا صوت السنة عمرك أندرويد بوله فايل كان مركز change كوسا ما يسا وحكوسا بيحدون قيبتها السرة sync gray على مدان so sync ده sync كان يعني حواي library gaas waxa ku jira classyo iyo function iyo variable oo hadhowta isticmaal doona kuwaas la soo qaada projectigeena CS19G lagu soo daraa wakaanama ina anaga aan classida sameeyno kale dan class object ka sameeysanayna hore oo soconayna functionski wixii dhan oo isticmaalayna meeshas maxaan ugu baaqanayo in maxaa la dhahaa waxaan ugu baaqanayso in maxaa la waqti badan oo classes wax aan gelin equal كان يقرأ يا علامة equal كان يقرأ so equal كده كتير try again then again okay أسألنا وحكى بلاوينا إن أمرك هوري ما دام صرف على هذا اللي ربنا إن عطسنا إن application كأنه بهاي إنه إنترنت استعماله use permission حوبانا علينا إنترنت cool waxaan imaan doonaa design-keena waa kan labadan iyo kan qaybtan waxaan ka programming doonaa marka inta save-ka iyo text-gan uu diyaarsan yahay magacaan ka bedelno txt employee name duplicate ka dhig txt employee phone so id laga soo aqrinay waxaan noqonaa kuwaana sharxaad ma garabtiin culamo iyo button-ka so mid walba marka soo dhageyso txt employee name duplicate phone sida waxa laga soo aqrinaya txt inta hada sharx kooyam ali keen kooyam baan kasta sharxinaya okay waxa bilaabana marka inaan la hadalno serverka aan la hadalno dan labada information aan u tuurno name-ka iyo phone-ka waliba faylkeena la hadlo waxaan ka bilaabaynaa inaan sameeyno waxaasna waxay dhacayaan batoonka save markii kaliya si kadib waxaan ka bilaabaynaa marka string request weynay string request mujida string request isticmaalayna this one wuxuu ka yimaada package-ka volley sr oo soo gaabina equal new string request kan wuxuu qaataa marka saddex parameter ko method labo URL حقه هذه السؤال أقول سفر كوكو سهرين هاي ويا سفر أو عادي كول عكتة الدومين ما له ذاك دومين كذا شيء .com دنه فايل كفون كي أشياء سا هذا أنا لوكال استعمالنا سو أبي أدرس كمبيوتر كشيء أنا بس بدل كي URL سدح responsiga soo naqanaya meesha ku soo dhici lahaay function callback afar hadii wax qaldamaan error ka meesha ku soo dhici lahaay oo callback function callback afartaas parameter oo qaadan doona parameterkooda waxa weeye method ka isticmaalayna u sheegayna parameterkooda waxa weeye URL hagee loo aadaa salaam URL variable meesha ku diyaarsanaa URL waxa leeyahay variable caadi ah string URL كنا شيءنا http لابد نبعد // URL كمبيوتر كا واستعماله هذا عن سنة كمان شغل فرق يرجله هذيك مع استعماله سامر هدي أنا كلا جيني موشن استعماله جيني موشن أبي أدرسه ليه أبي أدرس كاس أنت قيبت الماسك كاسم كده قنيسين أنت ماشان كان بقولي كوكا كان هيستوب so بقولي لابو كلا داسيست أوكي أنت لكن هراء سكيلنا وهدي أجيني مش استعماليس هدي كوارن موبايل استعماليس عادي موبايل كان أكورن جرينيس
markaas waxaa imaanaysa qasab ah in mobilka iyo computerka ay same network ku jiraan same network tusaalahaan oo kale internet ay ku jiraan internet maxamed la dhaho kana ku xiree kana ku xiree haddii kale kana dhaatada ka furee hotspot furane kana ku xiree hotspot kadib maxaa sameynay waxaa imaanaysaa CMD-ga waxaa fiirinaysaa marka computerkii internetka ku xirtay IP address ku qaatay IP config waliba qaybta wireless-ka ah qaybta hoos wireless kan IP address ku qaadanayo meesha IP address ku soo qormay hadda aniga computerkii wax wireless kuma xirna that's why uusan waxba ii tusin laakiin marka wireless ku xiran yahay qaybtan wireless-ka hoostiisa imaanaya IP address version 4 oo fiirinaya 192 wax noocaas ku soo qormaya kaasa qaadanaya marka laakiin kana qaadanaya maadaama virtual isticmaalayo inta country 3.2 oo virtual keyga waa computer keyga caadiga okay 190 iyo dhibic 160 iyo dhibic 50 iyo dhibic 2 oy haddii portalkaaga oo serverka uu ka bedelan yahay 80 waxa uu yahay sheeg laba dhibcood portalka sheeg haddii portalka uu 80 yahay iska dhaaf slash htdocs ka joog inta markaa qortid waxaa joogtaa htdog soo folderkaada sheeg marka folderkii hadda waxaa la cs19 g slash failka xgrainers failkan muxuu ahaa register.php methodka isticmaal doono wuxuu noqon doonaa get soo get ku isticmaalayna waxaa qasabay baaraamitirada inta ku darno sida hadaaya oo kale furihi employee name concatenation kula sameey variable-ka name-ka ku jira soo ma concatenation-ka what and aku ego employee for samo hayna igu hubiye furaha bus space u dhaxeeyay equal plus phone URL kan uu dhameystiraya marka URL kaas ku dhameystirnay soo marka hadda shaqaysanayna marka parameterkan koowaad already building ku yahay library-ga volley la socdaa library-ga volley la socdaa lafaadiga ilaas oo la 17 keentay oo dhaqanaa wallahi request baa isticmaalaa marka request dot method kan u hore kana request dot method dot then waa kuwana marka methodada isticmaalayso soo xaleena gedan isticmaalayna URL ka waan haysanaa waa variable URL ka callbacks ka marka leenku ugu dheeraana inta aan dhaho labada callback new callback waa building ka waa sax ku saafay new marka dhalo response listener jawaabta soo noqonaysa meesha lagu dhageysanayo waa elboorka oo jawaabta lagu keenayo meesha jawaabta saxda ah oo ay koodayso daabacayso soo intra leedahay waa si wadaya marka meeshaas imaanaysa hadana comma kii kale new error listener akas hadii la error dhacaan internet si kale خلاص intaasaan nooga filan waagi hore kood iyo glaasi waxaa tiro badan la qori jiray intaasaa lagu soo koobo waxaa sheeganaysaa methodka isticmaalaysid get post wuxuu yahay xaggee loo aadaa failka URL-ka dan labada method midna errorka kusoo dhacaya midna waxaa kusoo dhacaya response errorka ka hadlaya errorka ma aha waa la xareyn waaye error ma aha response sax waaye kaas serverka markastoo soo jawaabo waa response sax waaye laakiin haddii wax aanan ahayn wixii la sugaayay oo meesha ka imaado database-ka la waayay connection-kii la waayay serverkii URL-ka qaldan kana shaqeynaa markaas laakiin kan wuxuu shaqeynaa labada echo uu shaqeynaa haddii yes noo soo noqotana yes inta lagu soo shubi doonaa haddii no ay soo noqotana nooda inta lagu soo shubi doonaa soo anaga waxaan samayn karnaa marka si simple anagoo is wareerin intaan ka testi garayn karnaa haddii variable-kan response-ga ee serverka waxa ka soo jawaab lagu soo shubi doono hadduu la mid noqdo yes maxaa rabtaa hadduu yes noqdo inaad samayso meeshaas ku qor haddii marka uu no noqdane elsa ku qurxino
hadduu loo noqdo maxaa rabta inuu dhaco waxaa labadaas eenama ka imaan kara laakiin waa iska sii samaysanayna ayaa sidookaas warkaas macad yahay simple meesha waxaa kusoo dhacaya responsiga wax sarfarka ka imaanaya eekooda waxay soo daabacayso eekooyiskan waxay soo daabacayaan meesha kusoo dhacaya kan ama yes ama no responsigaas soo gali doonaa aniga marka waxaa u aqoonsanay meeshaan yes markay soo noqoto in xogtii la xareeyey haddii noo soo noqotona xogtii in la xareeyi waayo soo toostaan ku tusaynaa marka qofka waxaan leenahay haddii no yes noo soo noqoto reyaa korontada mi shaqeynaya maxaa dhacay كلام بحميها ما عملنا في لبنان يوجد جاجر كان دو مرد مسوق عتان كيس وقتي قادنا just توست أنكو أرقنا مرك هذه حقت الحري هذه كلا توست هذا أنا بحس ما يكون فيه هذا ما دام قرآن لكن دي بالي لو تصاص سمينا سعدي بواي قياب إيرور كاسين هل توصل لجانينا وأنكو جانينا واحد عاي لكن ماشي عن كده لأن كان حسوا آخرنا object كان إيرور كأه وات كان حالنا إيرور يقدر أفورك good message هاي سوجي ماشي قطب بس أرضي أنت بدنا إلهوان حد وحنا ديار سنة object اللي هذا string request أوي علينا جوجي object كنا ديار وحنا سمينا لأن object كنا كل شوي لكن طلابة كلام قادين وحاول بهنا مرك إنه فولي قعد سنة إنه حقت نوقع على مرك إنه object كان قدر صفق ندواقع جلاس وحاجة اللي request to queue وجوجل أما فولي وليه هاي أنت بدن request تيجي لو قدره ماشي وكحر ما يتجي سا host هذا ديار سنة سا جلاس object كسمست request to queue this one queue equal volley dot new instance initialization of something هنا of main activity dot this queue then حالينا at SR SR كان محاول انجينيرنج SR كان شيء SR كان حكى والله ريسورس يا كله SR تن أباز قريب حواي string request تيجي على سمينا هاي ما قاعد نطبح حواي واك SR object كان كلاس كسمسته وسترينج كجران دمان method كي URL كلمش الآدي لها مش جواب كسونا قلنا هاد مش إيرو كسونا قلنا وارن قرينا مركب تستقرينا وفيرنا أيضا قد أحد تجابين أيضا بوستين إسلام مركو تجابين هنا فرق يرى ونحي بوستينga بوستينga أنت بدل information ولا دراي أم حكت ولا دراي أنت بدل واقرسية مركزين قابل لو قري واركينا هاي كم كرو هذا حدا يا كرو دري مركو كرو هذا معناه حواي حرير لما لا أقوال أنتوا سحلي كلا لهين
هيا انت حقلنا محمد احمد لا فرم برنامج جرا ماشي حاقولها صافي ماشي هوي marka ku dhufto wuxuu weydiinaa exception oo ah clear text http traffic waa loo diiday macnaheedu waxa waa android waxay sameeyeen wixii http caadi ah oo aanan https raacsiisanayn hadduu s raacsiisayaas okay hadduu s raacsiisanayn way diidayaan waxaan sameynaynaa manifest tageynaa android manifest waxaan leenahay projectigeena ha isticmaalo clear textiguna weydiinaa waa كان حالينا مركترو نو قلاو إنه HTTP عادي أو سكورت كا هنا استعمال محاكلة محمود عمر عاقله وليه داتا ولا سيف جريس داتا ولا سيف جريس عند هذا بس كثيرين مرك أوروب بدانا محمود عمر باكس سيم مركي ما يسكن البحيرة جافة توي مركي البحيرة أندرويد قاب فضول جافة مركي البحيرة ودي بني هاي هذا داتا أكو كأنه بوست أيضا بوست يا انت مركا بوستك سمينين واحد كلمه سمينين كان لي بدلين امانه كانوا حلينا هاي بوست خلاص سيف ده لكن مش انا احسب بدلها يعني فولي وحبا احسب بدلها فولي او ايه ما حاسب بدلها كو كان كبلاو بوستن ودور هذه بوست لو واحد مجري مركب انتو كي جاي ديليت يو ار ال عادي ولا قناه مركب الى بوست waxaa rabaa inta ban heerka lagu baqaado xogta xogtii markaas oo kale oo boostiga waxa isticmaalayna source-ga meesha uu ka xirmaayo intiginaas meesha loo iimaanayna meesha ka xirmaayo calaamadaas semicolon-ka inta semicolon-ka gaarin ka hor labadaas qoys afurey enter inta ku qaaday marka xogta function waxa jilaa get baramis abay meesha lagu jeedaan get baramis back this one function kaanan aan xogta ku qaadayna get baramis ka marka xogta aan duubno qaab mapping aan duubno map java collection hash map da kadhigna hadaas okay hash map waxaan baxsanaynaa baramis equal new hash map كيدنا بارامس كسر نقول استعمالنا حكت فقادنا بط علينا حكت فرها وفريح حقه أو لقى استعمال دونه هوها امبلوي نيم value قادايو نيم كعادي قا امبلوي phone value قادايو سيجنه وأكوان هذا أنت تراي أو variable عادي قال وقدام بين مركب فكشة كام حاليا وحق لسه return بارامس خلاص يا بارامتر هذا نقاده مركب لكن وحقصب إيه فيل كين أو سبليمها فرياش ودي سنة يكوين يشتغل هذا مش هنبدله سو فيل مش قينا يعني employee name employee form values كان قاعدة أنا value text box كيمانة اللي text هذا كيمانة ده حالنا return خلاص so boss تيجي تصل قصبي أنا عندنا run
هاي ليلى محمد علي تليفون نمبر هاي تليفون كان بين ويا حسب سيف جريسن هاي خلنا أجر مجدا اسمه طابر معاه واحد جوابي بس هنا غلطك محاواي انت كسو صار غلطك ضف مريخ من جوجا قالاسك ضف مريخ marka failka oo PHP wax ka bedesho kale uma baahnid inaad refresh idahay oo la xagga la save ka leedahay kama taabanay ila PHP kama mid ahaan formka refresh kuma baahna marka dhacdada wuxuu leeyahay marka waa la save gareeyay aan fiirina fresh Layla marka wad muxuu sameeyay labada hore waxbeena kuwa ewerka ay ged waxba loogu duubneen anaga post loogu duubnay kan dambaan uu shaqeeyay bis oo labadaas saddexda information raba inaan soo aqriyo saddexda shaqaale inaan soo aqriyo android aan geeyana baadane ayagoo jumla aswato waa isku dhamaatay project walba la sameeyay maxaa waay ima android wax laga keeno android wax laga keeno ama in oo android wax la geeyo waliba waxa aad u badan in android wax la geeyaa badan Facebook application ka furtid wuxuu ku keenay waxa uu dirsanaysaa badan waxaa laga yaabaa maalinta aad registration sameynaysa imara post dhigaysid bas inaad dhahid xogtan database ka geey inta kale maanta dhan postiyada oo ku review gareynaysid iyo videos ka daawan waxa soo dhan maxaa sameynaa waxaa laga soo faj gareynaa database صح استعمالنا مركا جيسون صح وانا ما بوس نقول هنا حرينا ما نو كنترول ان كنترول اس لانه حاليا كانوا حب هنا get employee marina I'm all employees as كلامه .php all employee .php انت معك كذا بعنا انت عن قوي كان لك كذا بعنا بس كان شغالة دن إنه سو آخر يوبانا بالسيمبل connection كواحد البني هاي حالنا s connection query هاي select all أما all حتى سكبه from employee وحكى صار ناخذ variable يوشب وريا كنا منا ديبا هاي سيكون هو بيننا إيه محل صوهي لي وحارنا فيه variable area ماشي قسمة سنة all يرادو response equal array سيلو تقول لك رياو ده في عن باش سان لمانو response array حكتنا كشوا ربا حكت جيسون array أو بدله جيسون array أو بدله معنا بنان كما اسك أدان صاحبي علىهم جيسون array أو بدله دنه عن صوته so variable كان كشوا بدونه حكت database key ما تمرك so حالنا مركا كنا إيماننا مركا علماء عن جيرنا فيري لبس شيء بواربنا يا أبغى راسي علامة ضدك صحيح ضدك هذا أي علامة وحسمينا مركا وحاجة جرينا مركا هره هدي واحد كجيران سلوا جيرنا مركا علماء جيرنا تاب غيرت حاجة الفكشن اللي هذا count بالو كهذي انت رأينا ما هينا مياه
so function ka marka waxa leena if resp dot row count uu ka weyn yahay 0 then information aan duweena haddii kale marka hadduu 0 ka weyn yahay waxaana laga rabaa hadduu 0 ka yar yahay waxaana laga rabaa aan ka bilaawno bal 0 hadduu ka yar yahay else soma haye waxaa leenahay array underscore bush inta waxaa gelinaynaa variable-ka aan dhahnay haddii waa array inuu yahay variable-kan kan ah intana imaanaynaa waxaa gelinaynaa array fiiri meesha waxaan ku xiraa marka furo iyo value tusaalahaan oo kale waxaan leeyahay code valueskiis waxaan ka dhigaa waa ka xumahay no intaan imaanaa waxaan sameynaa fariin sms waxaan leenahay data not found ujida array aan ka dhigno furahan code la dhaw waxaa ku jiri doono yes ama no then waxaa ku gudbi doonaa sms furo la yiraahdo fura sms markaan isticmaalo waxaan heli doonaa wax allaal wix meesha aan ku qoray data not found sanaan kale waa goorme haddii uu 0 ka yaraado hadduu 0 ka weynaadane waxaana laga rabaa inaan ku dul wareegno dan aan kala soo dhex baxno xogta inaan isticmaalno while علينا res fetch استعمالنا function هذا وحاجة دون ماشان BDO exception حاربنا قارو كلا مركا اكس جرينا إنه values كا إن أكوش من variable هذا row مرور بلوب وريجاي then هادو تحاربنا row inaa ku access gareyno sidaan oo kale laba nooc oo la access gareeya based on object iyo based on array salaan oo kale marka object aanu access gareynaysid wuxuu noqonaa sidaan inaad dhahdid row then column ka magaciisa aad sheegtid column keena koowaad waxa uu ahaa employee name sidaan marka uu saaqist ama based on array inaad ka dhigtido sidaan oo access gareysid waa dhahdid employee name marka uu dhaxay mujidaan soo marka BDO gaana ku sheeganaa BDO underscore assoc iyo array ala kala siiyaan meesha kasoo koobiyeysa kala saxtahay bows kan li duqwayna hadda imtixaanaadka shaqooyinka loo galay waxaa lagu dhahaa isticmaal video so dhibaato badan tahay marka wixii duqa waa laga degaade daa aragtay maadadan duq waa dil u dhaho ka deg VB سيشابه في عنك VB وكلا كدك مع VB سلو برتا أرضي كلها ساعات عندي بمانا هاي فين محاسبة مرك فتش هذا عنه دان فيديو إلى ودي بعود فتش الصك معناه هواي قاب أسوسيت أهم ونص سمينا أو أري وكلا حكت مرك حسمينا هنا variable كين حد أو result يا كتوبنا سيدان وكلا أري push فين كود كوراه كودك waxaan ka dhigaa markaan yes faa'iido uu koodka leeyahay ku sheegaa anaga serverka mar walba jawaabta iimaanaysa ma naqaano laakiin waxaan heli karnaa labada jawaabka iimaanaysa mar walba furo ku jira hadduu kan yimaado furo waxa ku jira kood la yiraahdo hadduu kan yimaadane furo waxa ku jira kood laakiin inta kale ku dubnaanayaan marka waxaan fiirinaa marka hore koodka no ma yahay yes koodka fiirinaa hadduu yes ku jiro waxaan ku dhiiranaa marka furayaashii kale inaan u gudbo hadduu no yahayna inaan furayaashan kale u gudbo soo hadduu yes yahay waxaa leenaha furaha koowaad ID-ga employee-ga wuxuu ku jiraa haye s row godka koowaad oo ah ID coma sidaana ku wadeynaa marka ka labaad muxuu noqonaa furaha waxaa lahaa employee name furaha ku xirinaysidne isla magac le uga dhig aan ugu dheeraatay soo jarjar enter kan ku xiga
column ka magaciis ugu dambeyn date furaha u sameeyay muxuu noqonaa date meeshaas oo fiiri marka haddii rowga uu ka weynaado 0 waxaa la sameynayaa loopkana lagu dul wareegaa danna wax allaale wixii laga soo aqriyay database-kii waxaa loo ku shubaa variable-kan danna waxaan duubanayaa array-gan oo response ah furo waxaan u samaysanaa oo furaha koowaad code aan ka dhigaa codeka waxaa ku jira marka ama yes ama no hadduu yes ii soo baxo waxaan gudaha usii geli doonaa inaan sii isticmaalo id-ga iyo employee name-ka iyo employee phone-ka iyo date-ka wax la mid ah haddii kale marka oo kan uu 0 ka yaraado waxaan duuban doonaa fariin laakiin weli formatka waxaan ka dhigaa format array ah intaas markaan ka dhammaado banaankaasaan u baxaa xogtiaan diraa marka android u diraa eco aan leeyahay xogta dir xogta markaad diraysa marka jason ka dhig jason incode jason u bedel dan variable-kii meesha u baasgaray response semicolon maanta semicolon isticmaalin baa meelaha qaar ma semicolon ka tagay semicolon control s all employee.php all employee.php fiir information noo soo celiyay marka waa kaas wuxuu ka bilaabanaa calaamadaas qoyska oo array-ga ah so waa jason array isagoo ku dhamaanaa jasonka array-ga wuxuu hayaa multiple jason objects oo hayaa intaan waa 1 row ilaa date-ka laga gaaro waa maxamed iyo informationkiisa inta ku xigta waxay noqonaysaa yeeska markastoo ku jiraa ilaa ninka maxamed maxamuud ah informationkiisa haddana yees kale codeka ku jira id-yada kan waa 5 kan waa 2 kan waa 1 so informationkan waxaa rabaa marka android inaa geeno jason array waa bedelno inta sheekaysanaysaa jason array oo bedelno leenka u dambeeya functionkan muxuu qabanaa kan this one jason include ana jason array ugu bedel danne array-ga u baasgareeyay soo waqtiga waan hayaa xaggee kusoo bandhigeynaa waa marka toosta ah inaan isticmaalnay noqonaysaa listig oo baan hore isticmaalayn oo kale list inaan kusoo bandhigno magacyada ama jabtarka oo halka jabtar noo dhiman oo ka sheekeynaya recycle view waa ka gaarnaa nus saac ilaa nus saac 1 hour aa noo dhiman ya week dambe real project samee rabana oo igu yar tahay week 4 5 6 7 ala ka rabaa difaacasho koodku uu badan yahay 50 daqiiqo oo kood constant ah oo soo socdo ayay refreshment waxaa falaysan hadda la soo quraacateen marka hore aan qorno horta function xogta keenayo ninka fadhiyo oo isku hurdaya qeylinaaya ka waran anigii oo qeylinayna waa rabaa baashina sii socto function waxaan keenaa qaybtan hoose functionkan shaqadiis waxaan ka dhigaa inuu soo load gareeyo function meel banaan ah void waxaa leeyahay load all employee shaqadiis functionkan maxaa waaye inuu soo load gareeyo shaqaalahoo dhan waxaan ka bilaabeynaa xaggee u maraynaa string url http // domain namekii haddaay meeshaan kala duwanayaa mar walbo / magac maxaa waaya failka gala folkort / failka mis maxaa waaya
هاي request استعمالها سدح حب كي واي string request JSON array request JSON object request JSON array واكاس فوليو كتير سيء انتر GA أو سو قابلنا new JSON array request انتو كلا وايدني method كشيك أنا واحد method هذا مش شيء ما أنا فعل كان لو بقول شقينا so لكن post أنا قد بتكرر ناس كرينا request method بتكون ساقط كوما URL كوما بارامتر كان حاليا نل واحد information ماشي عن كقاعدة ما يجرو وامايا new response listener عشان كوما ده new error listener كده من بناء بوبح معك وحكي request queue بينه أصلا نقلنا كر أنا مرة كر أنت كسر مانينا request queue واك this one object customers سيدا دايو كلابس مرة والباقي إلهي أرضي كانوا إلهي مكاسب ما أنت refresh صرفك وحي أسمع ما بلا قاعدة بعدين لين كان connected then queue ده at GA صفقة قدر أوكي أنتوا صورنا قمرك حقتها دائمات حقتها دائما فيري string وهذا تابيس هذا لا تابع معاي variable response هذا تابيس string وهذا هذا نه أنا كنتصل وإلا بدأ مالنا response هذا نوصل نقل هذا تابيس فيري وحنا قلنا جوجل حكيت عن بولا عرب صارنا كريت response هذا أو yes no so دعيس string وهذا تابيس request هذا البنية string هذا ما دامه JSON array وياي JSON array وكاي صار دقيقة كما سين ودعية إلى يسوع هنوني بس الجنة دي كي اللي بيرتاح أنا يلا بيرتاح ما ليش هاي كان في توس أمرك حارنا إن فرنا في المشان بالك هو دوبية فر هذا وحنا كنا في JSON array وحنا كويه multiple JSON objects وحارنا كان إن فيريو ما يسأل كجرت راح نحاسب yes ما كجرت مثل no مركا وركسا أجارو وأنا قلت هل قيب كم إذا أنصو آخريا هل قيب كم إذا one JSON object يسوق قبل له JSON object كلا صورة بحال حبو JSON object يقاسا فرها وحاليها مركا code كيسوق آخر code كم حكوا جرا فيرني هذا yes ناخذ كده من loop كذا بلعبنا سا شقي سنة فرفر حاليا إيمانا JSON جيد ويني JSON object واك هل object كسبة سنة equal response جيجا أو كنا dot get JSON object JSON object هذا ويبنيه مرك كان كودات إندكس كيس وانا ونقنا رو وحي إندكس كيس تو ونقنا وحافيرنا عملتكم إندكس كيس زيرو وياه so try and catch كوكب ولا لعل هذه لوايو حاليا سرون try and catch كوريج هيه object كيس أنا استعمالها يا مرك جيجرينا if object dot get string of freeze وياه code dot equal هذول لمد نقضوا yes okay حق بالي وذا مرك هديك لما مرك ولا نقن وايو توستان وضاوعة عليها هاي حق لما سويهلي علينا دا أما SMS كتا صوت ضاوعة أو بانتاي هديك لا أنت سكاله data not found أنتو تجنينا توستان كده من الشغل هدي لكن وياس ناخذ شقانا على قربا اري ليستنا ديارينو ارسيكل فيو ديارينو ديزاين كيس ديارينو دن ادابتر ضم سمينو ادابتر كاس او باس غرينا حق داتا بيس كيمات marka waxa ka ku furfurta asgiixiis laakiin waxa jeegreyna meesha haduu code-ka uu yes yahay markaas aan ارسيكل فيو u diraa inta ka horeys waxa leeyahay no hadoo no yahay waxa leeyahay not phone symbol do yes yahayna shaqaana laga rabaa recycler view محل لا recycler view list view و advanced list view استعمالينه control كداي ولا عسريين سيد أرجع كم وقت recycle وحوصمينا أو خفك user كوسينا أود flexibility أدوين أو designer سمع سنة سأدو كوجارة
wuxuu sameynaa recycling oo sameynaa halka design multiple row isticmaal kartaa inaad kusoo bandhigto controlkaas marka waxaa la dhahaa recycler v work soo qabo qaybtaan hoos ku daaya inta waxaa leeyahay controlka buttonka wixii ka hooseeya ku xirmo labada geesna waalidka kaga xirmo hoosna sidoo kale kan dhaxda tagdhe double click dhaxda ID noogu sameyn circular view geena marka my circular view my rec ID ga soo qaat mainka imaaw sida caadada ee circular view adapters oo la shaqeeya qaybta saraan imaanayna maadaama uu control yahay kusoo diro projectiga intaan global aan ka dhigaa sababta circular view waxaa rabaa meelaha hoose functionkii hadda aan sameynayo overloadka ah inaan ka wacno soo global aan ka dhigaa marka objectigiisa circular view my rec ID gale uu magac daraa soo inta markaa jooga initialization u sameynaa kala meeshaan buttonkaan iska xir inta kale imaaw initialization u sameeya marka my wuxuu la mid yahay find view by dr.id.myrec circular view wuxuu u baahan yahay layout manager wuxuu mas'uul ka yahay circular view-ga itemskiisa qaabka ugu soo muuqanayaan shaashadda soo marka waxaa leeyahay my circular view layout manager object ka sameey ama caadi ugu baas gareey so inta imaanayna layout kaas sameeysanayna wariya ما أنت سحركين وهذا جيم حالي ما حصل عنتين. هاي أقرأ فوق عاجزين. هاي ما أنت بقسي ولا أنا فلاش كنا مرك خلاص أنا عاجز.